السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي سلام يا دمان أصحاب تلك نجد دعوة نسميله بوا شوكتان يسولبوا مقالكيجو ومركز يدين سوغاريب مقال كانوا حندونا يا إن كجا هذا أو إنه بالكور كربلو تاجريش عنصري جاه مدحونا هذا الكلام أمريكا دونالد جي ترامب وما قعد مركز السوق قبل يلو يقانو ماجا make America great again أي ما أنتوا حيقطعي maalin madow kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu dhabarka ka toogtay taageerayaashiisa farada badnaa ee cunsuriga ahaa meesha uu ka saaray qadiyadii weyneyd oo ay kooxahan markaas ay kula socdeen waxaan sidoo kale aynu muuqaalkan aynu bal ku fiirin doonaa asaga taageeriisa maxaa iska hor keenay muxuu sheegay maxay arintan saameyn ah oo Soomaalida ay ku yeelan doontaa iyo arrimaha ay dhan aynu bal dul istaagi doonaa waxaan sidoo kale aynu qodobka labaadna aynu bal ku fiirin doonaa isla Donald Trump ayaa mar kale ku duulay xildhibaanada laga soo doorto magaalada Minneapolis ee Soomaaliyeed Ilhaan Cumar wuxuuna Trump markaana u sheegay sababta uu Ilhaan uu necab yahay waa sir kale oo weyn oo markaas banaanka timaaday marka waa laba qodob oo xasaasi ah markii laga hadlayo duulaanka lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka marka bal soo dhawaada meel walba joogtaan isagoo muuqaalkaygu uu marka idin soo gaariyaba waa 17kii December 2025 waana markii ugu horeysay maanta hawada aynu ku kulanno waxaan markaa idinka codsanayaa inaad channelka subscribe gareysaan si aad la socotaan muuqaalada ugu dambeeya oo halkan ku soo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walba waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinayaa sida aad ka xuseen ahaan adiga garab taagantiin mar walba taageernimadiina garab istaagiina ducadiina masajidina inta badan oo arko aad baan idinkaga mahadcelinayaa Allah idin barakeeyo taa waa inta xarunta quraansaarka ee al-shifa quraansaar online ilaaba waxda weeye amarna waa kii ilaahay dadaal baasana saaran dooc kastoo laga eegay ditoorna ku daalay dabadeedna ka qoostay doorkan maanta baldaymo kalaamkii daa'inkeena ayaanu doorkan ku seegin xarunta quraansaarka ee al-shifa online waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa inay soo kordhisay daweynta jinka isha iyo sixirka ilaaba waxda weeye haddaba nagala soo xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda ha moogaanin xarunta quraansaarka al-shifa quraansaar online haddii aan bilaabo oo aynu bal ka hadalno arintan xasaasiga ah ee maanta sida weyn looga hadalhayo siyaasadda dalka Mareykanka waxaynu bal ku bilaabaynaa horta siyaasadda Donald Trump iyo kooxahan cunsuriga ee la socda maxay ku dhisantaa markaas aynu fahmi karnaa marka hadalka Trump ka soo yeeray sida uu kooxahan marka uu dhibaateynayo iyo xaaladda meesha ay marayso madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu ku jiray arrimaha ololaha iyo waliba markiisii horeba ayuu wuxuu sameeyay magacan MAGA la yiraahdo MAGA waa make America great again way waa marka waa in mar kale Mareykanka laga dhigo mid weyn oo barwaaqo ah si kale markii loo fasiro waa in Mareykanku haykalkii hore oo ay lahayd markaas dib loogu celiyo waa hadal ay si weyn kooxaha cunsuriga ah ay u jecel yihiin maqalkeeda waxa kale oo ku hoos lamaan erey kale oo la yiraahdo America first ama priority koobaad waxa iska leh dadka reer Mareykan iyo dawladda Mareykanka hadalka dambe wuxuu Trump uu isticmaali jiray in lacagta dalka Mareykanka meel kale la geeyo dagaal lagu kiciyo laakiin dalka waxba looga qabanin inay umadu baahan yihiin sida daraadeedna dhaqaalaha Mareykan lagu soo celin doono gudaha dalka Mareykan waana hadal ay aad u jecel yihiin kooxaha cunsuriga ah ee markaasi taageersanaa madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump marka kooxdan weyn ee cunsuriga ah marka ee Trump la socotay ee inta badan ba dadka cadaanka ah ee cunsuriga u badan ee dalkan degan waxay Trump kula socdeen ku taageersanayeen laba qodob oo kala duwan qodobka ugu horeeya waa in dalkan uu noqdo dal Kirishtaan ah oo diinta Kirishtaanku ay noqoto diin ahmiyada koobaad leh diimaha kalena markaas si weyn loo caburiyo waliba diimaha ay doonayaan in sida weyn loo caburiyo kooxdan ayaa waxay tahay diinta Islaamka marka qodobkaasi waa qodobka ugu horeeya oo in la naaxiyo Kirishtaaniyada ay aaminsan yihiin kooxahan redka ama conservative-ka la yiraahdo ama Trump dhankiisa ka imaanaya ee cunsuriga anagu aynu ugu yeerno qodobka marka waa qodobkii Trump uu sida weyn uu naaxiyay kooxdiisana uu halbeeg oga dhigay keenayna in cunsuriga oo dhan marka ay raacaan qodobka labaadna waa qodob koran idin sharaxay ah in ahmiyada koowaad Mareykanka la siiyo dhaqaale ahaan siyaasad ahaan dib u dhis ahaan iyo arrimaha ay dhan waxay kooxdan u aaminsanaayeen Trumpna uu ku campaign gareeyay inaan dagaal loo baahnay dagaalka Ukraine waa joojinaya midka Gaza waa joojinaya dhaqaalaha lagu bixinayo budgetka ummadan gelinaya caafimaadkan bedelaya waxa ay dhan ay aaminsan yihiin waana wuxuu Trump marka
uu ku campaign gareeyay marka waa labada qadiidad bay aaminsan yihiin mid waa midda Christianity-ga midda kalena waa in la joojiyo dhaqaalahan dagaalada lagu bixinayo dawladahan la support garanayo maxaa la yiraahdaa bajidan tirada badan ee Mareykanku ay caalamka ku bixinayaan labada qadiidad ay kooxdan ku dhisan tahay Trumpna ay kula socoto madrasada Banaafic Qur'aan online waa fursadii ubadkaaga ay ku baran lahaayeen Qur'aanka Kariimka iyo xifdintiisa axaadiista nabigeena hingaada tajwiidka afka carabiga caqiidada islaamka ducooyinka iyo adkaaraha kale waxa fursadan qaaliga ku diyaariyay madrasada Banaafic Qur'aan online adiga oo jooga gurigaaga ayaa ubadkaaga ku baranayaan tarbiyada iyo diinta islaamka haddii aad dhageysta ku sugan tahay qurbaha ka faa'iideyso fursadan qaaliga ayagoo dhammaan dadka yaryar iyo kuwa waaweynba ay ka wada qayb qaadan karaan ama ka faa'iideysan karaan fursadan si aad isaga diiwaan geliso ama u heshid macluumaad dheeraad ah la xiriir taleefanada shaashada ku qoran mahadsanid sidaa daraadeed marka halkii sano uu Trump uu xilka u joogay ayuu taageerihiisa weyn ee cusuriga wuxuu mashquulay oo uu sheegay in mashaakilka badan oo dalka ka jira ay sameysay dawladda isaga ka horeysay oo uu hogaaminayay Joe Biden haday tahay arrimaha immigration-ka haday tahay arrimaha dhaqaalaha haday tahay wax walba waana wixii markii dambe keenay in culayska weyn oo Soomaalida lagu hayo markaas la saaro in la keeno muslim ban liya dalka muslim soo galay in la yiraahdo Soomaalida waa sida in la yiraahdo sida marka ugu dambeyn Donald Trump ayaa xalay waxaayo dhan marka burburiyay oo haraati ku dhuftay kadib markuu sheegay laba qodob oo taageerayaashiisa dhabarka ka jabiyay qodobka ugu horeeya munaasabad waxa Trump uu ka hadlayay oo ahayd munaasabada lagu xuso maalinta ay Yuhuuddu leeyihiin oo hana ka hadlaydo ayuu Trump ka hadlayay sida daraadid markuu waxa uu yimaaday nin wariye ah oo ka tirsan warbaahinta Fox News la yiraahdo asaguna aad caan ugu ah walaalaynta Yuhuudda waa nin magaciisa la yiraahdo Mark Levin ayaa la yiraahdaa marka ninka ayaa soo istaagay Trump oo qodbaynaya kadibna wuxuu la hadlay shacabka wuxuu ku yiri Donald Trump waa madaxweynihii ugu horeeyay oo Yuhuud ah oo dalkan madaxweyne ka noqday ayuu yiri Trumpna wuxuu ku raacay aragtidiisaas bal wax yar muuqaalkan xamri la daawada and I said this is our first Jewish president. Now he's the first Jewish president to serve two not consecutive presidencies. We thank you for everything. That's right. Bad things happened on the second one. Arrintaas waxay markiiba ay gudaha dalka Mareykanka ay ka abuurtay guux weyn kooxdii cusuriga ahayd ee Christianka ahayd ee ninkan ku hareereysnaydna markiiba waxay dareemeen in waxa la wixii Trump uu sheegay ay been ahaayeen iyo waliba inay meel cidla ah ay markaasi ay taagan yihiin waxa sidoo kale baraha bulshada waliba barta X kaliya ka bilowday in si weyn loo dacaydeeyo dadkii taageerayaasha u ahaa xisbiga Republican-ka ah ama kooxda maaga la yiraahdo marka qodobkaasi wuxuu noqday qodob tashuush weyn fura reaction-ka dadkii Trump taageersanana xalay wuxuu noqday maantay mid aan weligeed aan hore loo arag qodobka kale oo asaguna la yaabka noqday ee taageerayaasha Trump xalay ka xanaajiyay ayaa waxay tahay intii Trump uu xalay hadlayay ayuu warbaahinta u sheegay in 15 sano ka hor lobbyga dalkan ugu awooda badan inuu ahaa lobby ay iska leeyihiin kooxaha Yuhuudda laakiin maanta la joogo wuxuu yiri lobbygu waa organization u ololeeya arrimaha siyaasadda marka lobbygu ugu weynaa buu yiri ee dalkan ka jira ayaa wuxuu ahaa lobby ay Yuhuuddu ay markaasi ay leeyihiin wuxuuna intaasi uu ku daray in xilligan uusan lobbygaas ahayn midka ugu awooda badan gudaha dalka Mareykanka oo arrintaasi la bedelay wuxuu tusaale u soo qaatay Congress-ka dadka jooga intooda badan Israel iyo Yuhuudba way neceb yihiin buu yiri wuxuu tusaale u soo qaatay Ilhan Umar Israelna way neceb tahay buu yiri And I will say, you know, if you go back 10, 12, 15 years ago at the most, the strongest lobby in Washington was the Jewish lobby. It was Israel. That's no longer true. You have to be very careful. You have a Congress in particular which is becoming anti-Semitic. You have AOC +3. You have those people, Ilhan Omar, she hates Jewish people. And you have to be very careful because there's been a big change. You know, if you... qodobkan qaybta dambe conservative-ku inta badan way laqi karaan kooxaha cusuriga laakiin qaybta hore inuu ka xun yahay in organization ajnabi ah uusan ahayn organization awood leh
ayaa waxay ayaduna noqotay wax si weyn uga caraysiyay kooxaha Trump taageersan ee markaas cunsuriga ah marka labada qodob oo Trump xal u sheegay ayaa waxay ka caraysisay dadkii taageersanaa madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump waxayna arkeen taageerayaashiisu in markaas ay gudayaan waxaan sidoo kale arkayay dad badan oo markaas Trump kula socday weerarka lagu yahay dadka Soomaaliyeed oo aragtoodii markaas wax ka bedelay oo leh waxa loo nacab yahay Soomaalida ma Israa'iil ba mise wax kale oo policy ah oo Trump waday ayaa markaas jirta wuxuu hadalkaanu uu run ka dhigayaa hadal dhawaan uu sheegay dhalinyaro reer Minnesota oo jiraan Xuseen la yiraahdo uu yiri duulaankan lagu soo qaaday oo duulaan ay gadaal ka riixayso Israa'iil ayuu yiri marka kooxihii tirada badnaa ee Soomaalida duulaanka ku ah dhanka buraha bulshada ayaa waxa laga dareemayaa daldalaac xoog leh kala qaybsanaan iyo waliba in qaar badan oo kamid ay ka niyo jabeen siyaasadii Donald Trump oo markaas isbedeshay dadka qaar kamid waxay leeyihiin muuqaal laga hayaa ma yaala blackmail gareeyay miqyaan nagula socday iyo waxa la soo koobi karin sidoo kale doorashooyinka localka ee dalka Mareykanka ka socda ayaa waxa la arkayaa in kuraastii ay lahaan jireen kooxahan cunsuriga in markaas Democratku ay la wareegayaan maalmihii hadda la soo dhaafay ayada naftirkeedana waxa lagu macnaynayaa dildilaac xoog leh oo soo dhaxgalay siyaasadda xisbiga markaas Republicanka ah marka dildilaac xoog leh ayaa soo galay kooxihii duulaanka ku ahaa dadka Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan lamana garanayo xaaladaas sida ay noqon doonto maalmaha soo socda laakiin waxa muuqata oo hadda ay warbaahinuhu ay sheegayaan dadkii Trump ku hareereysna qaar badan oo kamidana ay ka baxeen garabkii Trumpna wuxuu sheegtay inuu yahay madaxweynihii ugu horeeyay oo Yuhuud ah oo markaas dalka Mareykanka abid madaxweyne ka noqda waana arrin weyn markii laga hadlayo siyaasadda gudaha dalkan Mareykanka marka bal wixii arrimahan ka soo kordha muuqaaladeena dambe ayaynu ku fiirin doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.